beeshu aniga sheerkeedu oo saafi ah oo buuxa oo dhamaystiran ay iga filanaysaa ilaahay idinka ilaahay guulo ومن أديك صدقنا إلى ضدي عيان إلى ضدي دبعتيان واحد دولة مدة تاني قال شقيد ولا انتهى أنا كود الشقين أنا سأجرت أنا وكم جرو هدي عشر كفلنا سأجرت أنا معه مروا البدن عوانك سنة يسوحي وحين أسلب الله وني محكمة دي إسلامية هاي وحين أسلب الله وني محنكو إلى هذا سبيسي قد بحرينته وحين أسلب الله وني محنكو إلى هذا اللي دقال لك على الشباب intuna waxay ahaayeen qadiyado waaweyn oo sharaf iyo karaamo laga soo wada hooyay waana ku mahadsan yihiin intii ku dhimatay ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannaha geeyo intii ku dhaawacantay na ilaahay subxaanahu wa ta'ala badr khayr qaba ha siiyo inta maanta taaganna wixii aan ku naaloonaynay asxaabta ku soo dhawaada Runshack Media Network war maxaa madaxweyne Sheekh Shariif ka qaldamay maanta madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu ahaa madaxweyne dalkan soo hogaamiyay dadka Soomaaliyeed xushmad ay u hayeen iyo qadarin iyo karaamo laakiin maanta waxaad moodaa madaxweynaha waxa si ka ahay I don't know ani wax ka qaldanay laakiin madaxweynaha wuxuu sameeyay xadgudub bareer ah oo u bareeray beeshii Habargadir isagoo loogu tagay raali gelin iyo in loo muujiyo garab istaag meeshii laga filayay madaxweynaha mahad celin iyo soo dhaweyn iyo saasoo kale inuu ka mahad celiyo ma taqaanaa wanaag loogu yimid iyo garab istaag loogu yimid ayuu wuxuu ku bedelay ma idin dhahay dad ii soo caaya xaqiina idin siina cadkiina idin siina madaxweynuhu waxa loogu yimid ma ahayn ma idin dhahay dad ii soo caaya Habargadir ma ahan dad la dirsado ma ahan eeyo loo isticmaalo maaragtay muxuu ahay dadka loo isticmaalo oo lagu diriyo lagu xuxiyo oo la yiraahdo maxay la eega wuxuu yahay xayawaan la diro oo la yiraahdo qabo waxaas qabo saas sameey go soco Habargadir ma ahan madaxweyne dad la yiraahdo sida eeyihii go la dhaho dhaqaaq soo qabo waxaas ma ahan haddaad ula jeedo madaxweyne Xasan Sheekh iyo tiimkiisa tiimka naga jiro madaxweyne Xasan Sheekh ay la shaqeeyo madaxweynaha ay Habargadir taana ma ahan dad la dirsada ma ahan madaxweyne Xasan Sheekhna dad Habargadir ma dirsado mana ku adeegto ay si sharaf leh oo karaamo leh ula shaqeeyaan position ay tahay haystaan dad ku sharfan waa meesha ay joogan dawladnimada ay joogan xuquuqdooda haysto marka inaad madaxweynuhu beeshana aad ma aragtay waxaan ku xadgudubto dadkii Habargadir matalaya dawladda ku jirna ku xadgudubto ma ahan madaxweynuhu maxay la hadalkaada laba macno yeelana macnaha koowaad waxa waaye dadka Habargadir dawladda ku jiro ee kala duwan nooc kasta ha joogan position kasta inay yihiin dad la dirsado eeyaa oo macnaha sida eeyay common gool la dhaho ima was sax ma aan madaxweynuhu midda kale inta fasiraada kale la saari karo waxay tahay dadka koor fadhiyay ay ku yimid raali gelinta ay ku yimid madaxweyne waxaan diyaarunaa inaan garab istaagno qalad kasto kugu dhacay ama wax kasto kugu dhacayna waxaan kaaga garaabeynaa wax raba ha noqdaan dadka ku yimid madaxweynuhu waxay kugu lahaayeen soo dhaweyn iyo mahadsantihiin iyo jisaaka la qeyr laakiin ina uu jawaabto ma idin diraayna dadka ii soo caydaan sax ma madaxweynuhu yaa Habargadir oo la diray inay dadka u soo caayaan dadka dad sharaf leh oo karaamo leh oo lagu yaqaano nabadeynta dawladnimada Soomaaliya dadka keenay dadkii halgankii gobonimada Soomaaliya keenay sharaf leh siyaasiyiin macno leh dad macno leh miisaan iyo mug leh ka dhashay Habargadir la yaqaano hantiilayaal dadka uu xoolaha badan Soomaaliya daaraha uu qurux badan dadka ka dhisay magaaladan koonfurta Soomaaliya dadka amnigeeda keenay dawladnimada la haysto dadka hadda ay beeskoodu tahay ay ku taagan tahay amniga dadka hadda ka shaqeynaya ee dawladnimada difaacay ilaalinayo way dadkii adiga ku garab istaaga waa madaxweynuhu kula shaqeeyay dhan kasta kala shaqeeyay hadda ilaa hadda ku garab taagan geesaha taagan marka inaad dadka noocaas madaxweynuhu u gafto waxay kugu tahay gaf runtii aan loo meeldayn waliba madaxweynaha waa u qilday lahay hadduu markuu hadlaayo hadalka oo body language san fiish madaxweynaha haddii ay oo iska ahaalahay qof caadi ah waxaan dhihi lahaa madaxweynaha hadalka ka soo fakada laakiin madaxweynaha waa qoslay markuu dhahay saas waa faraxsanaay shucuurtiisa waxay ahayd emotional wuxuu ahay mid degan oo markaa fiiriso psychological madaxweynaha DV Delta behavior uu isticmaalaya madaxweynaha
وانا قانا انا psychological mataqaanaa waxaa jiro behavioral oo waxaa jiro lagu cabiro halbeeg lagu cabiro qofka xamaasadiisa markuu faraxsan yahay markuu murugaysan yahay madaxweynaha behavior dalta ku jira hadda dalta ku jira behavior kala dhaho waa behavior la yaqaan oo mataqaanaa marka qofka xamaasadiisu ay joogto heer fiican oo is control karo oo hadaladiisa dhagihiisa iyo afkiisa ismaqlaan iyo ficilada oo sameynaya iyo dhaqdhaqaaqa jirkiisa ay isla wada socdaan oo si simultaneously ay wada shaqeynayaan madaxweynaha jirkiisa markaa fiiriso body language-ka indhaha sanka afka dhagaha gacmaha garbaha markaa fiiriso waxay ahaayeen xaalad degan ay ku jireen oo aan wax dhibaato iyo wax mataqaanaa muxuu ahaay negative kama muuqan farxad dhammaystiran deganaan iyo energy ku dhisan xamaasad gudaha ka imaanayso ayaa madaxweynaha ka muuqatay physical appearance-giisa iyo body language-giisa taasi marka waxay muujinayaan inuu madaxweynaha farxad dhammaystiran uu dareemayo madaxweynuhu waxaa laga rabaa inaad raaligelin ka bixiso arrintaas wax la aqbali kara ma ahan kaama mudnin inaad saa noola hadasho sharaf iyo karaaman kugu nimid habargidi waxay kugu timid inay ku tiraamudna madaxweyne waa ku garab taagannahay wixii wax kastoo qalada oo kugu dhacay nuuc yarba ha ahaadaan cid darabta kugu geysato wuxuu ahay waxaan diyaar u nahay inaan kaa raaligelino muxuu ahay kula shaqeyno ku garab istaagno marka hadday saas kugu timid madaxweynuhu waxa ay kaa filanayso waxay ahayd ama lagugu lahaa waxay ahayd waa mahadsantihiin soo dhawaada walaalahayow soo dhawaada annaga abgaal xumaan uma qabno isku calafaan nahay dad waa walaalaheena waxba uma qabno xumaane laakiin madaxweyne shariif hadallada uu ku hadlay waa hadalla dadka kala gey karo madaxweynuhu waxa aniga aan iska dhahaya ma ahan waxaan aniga aan kaa sheegaya ama aan abuuraya ma ahan waa hadalaa tiri waaye waxaa loo fasira karaa inuu madaxweynaha u arko beesha dad liito macno lahayn baana ahayn taana ahayn laakiin ku filan kaliya inay uma dacaayaan saasna manihin madaxweynuhu waa ka macno badan nahay dad wax bartaan nahay aqoon-yahanaa sharaf leh karaamo leh habagidir culumay leedahay aqoon-yahanay leedahay nooc kasta leh aqoon kasta leh ganacsatay leedahay dadka ugu dhaqaalaha badan Soomaaliya waaye dhisay horumariyay meel kasta taagan gobonimada keenay ku sharfan gaal iyo muslim la diriray Amerikaan ka saaray magaalada Muqdisho cid ka saartay iyadoo la waayay Ethiopian ka saaray magaalada Muqdisho dadka noocaas waa habagidir madaxweyne dad waxad gudbi kara ma ahan dad loo gafana ma ahan marka madaxweynuhu say wax ka noqotay moogi nin sheekana waa tahay bal dib u soo noqo beesha raaligelin si teeda kale madaxweynuhu khudbadaha inaan qorataa ku fiican oo markii aad qorato double check lagu sameeyo laga turxaan bixiyo oo qaladaadka ku jira la saaro wixii xaraf keeni karo tiimkaada protocolka inay fiiriyaan qoraalada khudbadaha ka turxaan bixiyaan afar madaxweynuhu saano kale bari dad kale ayaad ma aragtay muxuu ahaay hadalla saano kale aad ka hordhigi kartaa marka madaxweynaad tahay madaxweynaad ahayd haddana madaxweyne inaan noqotaa u socotaa siyaasi la yaqaan oo caan ah tahay shiiqaa tahay nin wanaag lagu yaqaanaa tahay xumaan lagagama baran marka madaxweynuhu waxaa laga rabaa inaad beesha aad raaligelin ka siiso oo tiraahdo war waa qaldamay hadal gaf idinku ah oo ahay kaas ma mudneen waxaad mudneedeen soo dhaweyn diiran iyo inaan maamuuskiina iyo muxuu ahay bartoolkiina ilaaliyo laakiin inaan ereyada noocaas ku hadlo ma aha madaxweyne inaad tiraahdo saas inaan u hadlo ma aha saas laga rabaa madaxweynuhu hadal madaxweyne mas'uul sheekh ah lagama filin ereyada noocaan oo kala marka madaxweyne waxaan ku leenahay dib u soo noqo oo raaligelin ka bixi khudbadaha iyo public speech ka sameeyaysan madaxweynuhu dadkaada protocolka marka hore iga fiiriya dhex halaga turxaan bixiyo qaladaadka ku jira laga saaro ereyada xanafta loo keeni kara laga saaro ama kici kara horin ama iska horkeen ama beel ku abuuri karo ma aragtay muxuu ahaay cadaawad ku abuuri karo maxaa yeelay dadka habeenkii ku kala qaybsamay hadalkan madaxweyne runta marka kala hadlo qaarne waxay u arkaan hadal madaxweynaha oo iska yiri qaarna waxay u arkaan hadal madaxweynaha oo gaf oo mataqaanaa toos oo u bareeray beesha inuu dhulka ku jiido oo dhulka la galo oo bahdilo oo ka dhiga waxaan baan ahayn taan ahayn marka madaxweyne saas beesha ku noqomayso horta laakiin waxa laga rabaa madaxweynaha tahay inaad beesha miisaankeeda ilaaliso ku sharaftay ku ixtiraamtay ku timid haddana diyaar oo inay kula shaqeyso garabkaada noqoto madaxweynuhu ilaali protocolka iyo nidaamka intaasaan ku leeyahay aad u mahadsan tahay intaas waxay iga tahay
wax isu sheegi karnaa madaxweyne siyaasigu macnihiisu madaxweynaha macnaheedu ma ahan macnihiisu ma aha malaa'ig ma ahan bini aadam waa qofka waa qaldami karaa ma qaldam waa ilaahay kulli bini aadam qadlaa'un waaye khayr qadlaa'una tawaabuuna marka waxaa la rabaa madaxweyne gafkaas inaad ka raali geliso beesha habargadir guud ahaan meel kastoo joogto oo saa ay ku calool fiiwaato baaqaasaan kuu jeedinaa kulley aniga aragtideeda iyo talada aan ku sii lahaay saas waa madaxweyne joyceka adaa iska leh inaad raaligelin bixiso iyo inaad iska dhaafto waa mid adiga mataqaanaa it's your mataqaana personal choice waayo haddaad tiraa waa raaligelinaan ka bixinaa iyo haddaad tirahda marka bixinaa waa iska dhaafaa the choice is yours madaxweyne adaa iskala dooqa asxaabi rusheek subscribe gareeya videoga meel gaarsiiya aragtidiina qaybta hoose commentiga kusoo qora muuqaalkana share gareeya inta aan isku arkayno muuqaalka wuxuu waxaan idin rajeynaa khayr caafimaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu